madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen culimada diinka macallimiinta arday quraanka imaamiyada iyo guud ahaanba culimada ku fogan barashada iyo fidinta diinta islaamka ee ku nool caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga mar haddii aan maanta isu nimid bal jiha ahaan dawladdu xagee u socotaa marka ay noqoto arrimaha diinta xageen u soconaa inaan xoogaa isbarbardhiga ku sameeyno shalay iyo maanta sidee way xaaladdu berri say noqon doontaa insha Allah inkastoo wixii qaybka inagu aynaan ogeyn haddana doras waan samayn karnaa in nagu filan oo khibrada waan soo aragnay marka ugu horeysa waxaad ogtihiin in geeska Afrika muddo hadda 30 sano ku dhawaada dagaallo diintu ayna ka marnayn ay ka socdeen magacyadu ha isbedbedelaan kuwaas oo deegaankeenuna in fara badan oo dhibaato ay ka soo gaadhay waxaan u joognay iyada oo deegaankan kulli aan garanaya gabdhaha sharabaadka laga saaro iyada oo ragga ka suraalka u gaaban yahay leeyahay suraalkiisa gaaban kaliya ay dambi tahay oo xitaa xorriyad xitaa wajigiisu soo noqonayo xorriyad uu qof u haysan hadduu gar la bixi hadduu jari xorriyadda ugu sahlan ee aroorti una haysan baan u soo joognay kulligeen waxaan u soo joognay iyada oo muxuu ahaa si cad shacabka dhexdiisa inta lagu tuhmo diin la'aanta madax looga dhigo oo wixii diin lagu tuhmo shaqo dawladeed iyo mas'uuliyad dawladeed laga fogeeyo lana yiraahdo kan maaragtay aragtidiisu aragti siyaasadeed iyo tu dawlad ma geli karo halka kuwa qayla kuwa khamrida cabba kuwa fuxshi kasta sameeya loo qaadanayay inay yihiin hal doorka bulshada ama xisbi haddii loo xulan ama dawlad haddii loo xulanayo kuwani waa kuwa iyagu dawladda la jaan qaadi lahaa waxa wixii loo sameeyay waxay ahaydun in ruuxda bulshada la baabi'iyo bulshada in la dhibaateeyo oo dhulkooda laga qaato oo la gumaysto waxa ka horeysa kolka hore in aqoonidooda la baabi'iyo in dadnimada la baabi'iyo aqoonidooda inaga iyo dadnimo iyo jinsiyadeeduna waa wax isku dhex jira wax kala baxsan ma islaamnimada iyo Soomaalida ma kala saari kartid way isku dhex jiraan halka qofka fadhiya haduu yiraahdo waad aragtay iminka kuwa Soomaalida ee malaha Yurub iyo dibadaha iyo diinta ka baxo kale waad aragtay dadku uma arkaan Soomaalida yihiin yani jinsiyadii iyo toos bay diinta isku xiran tahay Soomaalida xageeda oo reerkii ma sheeganayo macnaha qof ajnabi oo luqadii barteen baa loo arkay marka waxay ku tusaysaa in inaga jinsiyadii Soomaalinimada iyo diintu ay isku dhex jiraan waa in qofka Soomaaliya ay asaas u tahay inuu Islaam yahay marka waxyaalaha noocan in lagala dagaalamo Islaamnimadii iyo Soomaalinimada in lagala dagaalamo iyo ka shaqeeyeen kooxdii TPLF sababta koox yar oo rabtay inay dad ka fara badan gumaysatay ahayd si ku gumaysan kartaa waxa weey kulliina muqoonisa ma kulli inay laakiin dulayso ay ahayd waxalihi noocaas aha wixii baaqi ka ahaa waa intii maanta meesha isugu nimid in aad u fara badan way ku halaagantay in aad u fara badan oo tirada aan la maleyn karin ayaa ku halaagantay oo ku baabaaday oo ku qaxday laakiin haddana ilaahay bulshada maartay wixii oo dhan uu ka soo saaro maanta weeraan 40 sano u dambeysay dadku waxay xor u noqdeen in diintooda say rabaan u cibaadaystaan inay bala cabsi ku noolaadaan inay aqoonigooda u madax banaadaan ayay maartay chance u heleen waa loo yahay jeelka halkan ha joogaadeen in macallimiinta quraanka lagu ciqaabi jiray yani waxa ugu badan ee bulshada ay ixtiraamtaa waa hogaaminta diinta meel walba islaam kaliya ma diimaha kale xitaa si gaar ah yaay maartay dadka astaanta diinta looga arko loo ixtiraamo inaga astaanta diintu waxa la isku beegsado oo la isku dhibaateeyahay waxaan u taariikhiyeynaya inaan shalay kaliya ku mashquulo oo wanaag hadda anagu aan soo kordhinay 40 sanadood oo isbedel oo keenay aan ka dhiga ma waa inaan wixii shalay toole aan kulligeen wada ogaano si waxa bari iman karana aan u ogaano waxa bari iman karana wixii shalay inuu soo noqon karana inaan ogaano sababaha keenaya nooc doon ha noqdaan inay jirto khatara in maaragtay inagu soo laabtaan in la ogaado weeyaan weerarkan al-shabaab marka wuxuu sahlaya arrimaha noocaas ah inay soo laabtaan aad buu sahlaya
hadday waxaa ugu filan toddobaadkan keliya waxaa bilaabatay dadka is-eryanaya siyaasaduhu inay bilaabaan hebel waa al-shabaab adeerkii baa al-shabaab hooyadii baa al-shabaab hebel waa kana taasi meel ku istaagi mayso marka waa in kulligeen aynu isla qaadanaa in wixii shalay ummaddan lagu dhibaateeyey inugu soo laabto inaan maaragtay diidno waxaa weeye qofka al-shabaaba ummaddeena inuu dhibaateeyo raba ee afkaar khaldan nala soo dhex gala ee khatarta ku ah inaan iska qabanno inoo gacmo haysaysano shacab culumo dowlad inaan isu kaashanno laakiin fursad cid kale kusoo dhex gasho oo ummaddii ay kaga dhex faa'iidaysato inaynaan u furin inagoo dana kooban raadinayna inaan taa horta aynu kulligeen aan wada qaadano weya halkan cid fadhidoon isleeyahay maanta al-shabaab deegaanka soo gasho ama fikir shabaab iyo argagixiso deegaanka ka hirgalo yaa jirta ma jirto shacabkan waad aragteen jawaabtiisa kulankani oo ay soo abaabuleen golaha sare ee arrimaha islaamka iyo maxkamadda guud ee shareecada islaamka dowladda deegaanka Soomaalida ayuu nuxurkiisu ahaa la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo cambaarinta duulaankii guracna ee ay ku soo qaadeen deegaanka waxa uu ka qabsamay madasha kulamada Suudaan Udawaa Liibaan ee xarunta madaxtooyada khayr allah siiyo xukuumadda dadaal badan bay bixisay ciidamada oo aan kala qaadaynin ee deegaanku leeyahay dagaal xoog leh ayay kaga hortageen shabaab iyo dhibaatooyinka ay damceen inay ina gaadhsiiyaan khayrna allah siiyo waan u ducaynaynaa sidoo kadaalika shacabka oon kala had lahayn odayaashiisa culimadiisa aan runtii kala had lahaynna waxa weeye hawlgal adag ayay sameeyeen waad ka warqabtaan culimadu oo ay hogaaminayaan labada xafiis arrimaha islaamka iyo shariicada islaamku gobolada waxay ka sameeyeen baaqiyo aad u fara badan bay ka sameeyeen dhammaan gobolada deegaanka uu ka kooban yahay sidoo kale marka culimadeena xaasimada joogta in aan wixii tala bixina ee aynu samaynayno ee shacabka siinayno ee shacabka ku abaabulayno inaan si xoog looga qayb qaadano aan muujino aragtideena haddaan nahay culimadii deegaanka khaasatan muraayadii deegaanka oo ah caasimadda Jigjiga culimadii ku dhaqnayd inay dareenkooda muujiyaan iyaga oo gamcaha iswada haysta walaalo ah cadawgaas deegaankeena ku soo duulay qaabkii aan uga hortagi lahayn wadadan hadda aynu marayno ee waqtiga doonta aad marayso kafteeriyadan aad fadhiisanayso ee sidaa doonta aad u fadhiisan masaajidkan aad ka soo baxayso ee aadan ka baqaynin ruux albaabka kugu sii sugaya waxaad aragtay ruux masaajid ku sugaya ku tukanaya oo la leeyahay ruux salaad badana aan dili ee horay u soo baxo ruuxaasi wax diina annaga agtanada kama aha meeshay ka ahayd bay ka ahaan jirtay hadii oo ilaahay uu wada allah ka dulqaade annaga waxaasi inuu ina soo gali karin oo aynaan waxa aqbali karin taa weeye wixii aan rabnaa inaynu cadayno oo aynu bulshadeena u sheegno iyagana aan u sheegno ujeedaduna waxa weeyaan waa dawrul ulama fil amn dawrka ay culimadu ku leedahay amniga kalimadeedii iyo in ayna hoos u dhicin ay kor u hadasho culimadu taas ayaa looga baahan yahay kulankani muddadii uu socday ayaa waxay culimadu soo saareen baaq ka kooban 9 qodob oo u dhignaa sida tan qodobka koobaad baaqa waxaan cambaaraynaynaa falalkii argagixisadu ka geysatay deegaankeenna waxaan taageeraynaa una hambaliyaynaynaa guushii taariikhiga ahayd ee ay ku soo afjareen ciidankeenna geesiyada hawlgalkii lagu sifaynayay al-shabaab argagixisada al-shabaab ee khawaarijta waxaan bogaadinaynaa kaalinta muhiimka ahayd ee xukuumadda uu ugu horeeyay madaxweynaheena mudane Mustafa Maxamed Umar iyo hoggaanka nabadgelyada Mubashir Dibad iyo xukuumadda oo dhan iyo taageeradii guud ee shacabka si guud in loo kala hadhin rag iyo dumar culimo iyo caamo dhalinyaro iyo odayaalba ayaan taageeraynaa
lagu taageerayay loona fidiyey ciidamadeena gaarka ah xoogeena gaarka ah geesiyaasha Leopolis waxaan si guud ahaan bulshada ugu baaqaynaa inay sii laba jibaaraan taageerada ay la garab taagan yihiin ciidankeena gaarka ah iyo cid walba oo maaragtay cadawga ka hortagaysa waxaan bulshada si guud haddana ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan falalka guracan iyo fikradaha xunxun ee khaldan ay xambaarsan yihiin argagixisada xun ee maariqiinta khawaarijta al-shabaab waxaan bulshada u cadaynaynaa in al-shabaab wax sal iyo raad aynan ku lahayn diinteena islaamka ee suuban ay yihiin khawaarij maariqiin ka baxsan diinteena suuban ee nabadgelyada ku salaysan iyo wada noolaanshaha iyo jiritaanka waxaan culimada deegaanka ugu baaqaynaa inay si joogto ugu cadeeyaan bulshada afkaarta khaldan ee aaminsan yihiin al-shabaab taasoo ku dhisan ama ku salaysan takfiir iyo daadinta dhiigga muslimiinta iyo khalkhalgelinta amniga waxaan cadaynaynaa ama aan ku boorinaynaa culimada in masaajida iyo manaabirta khutabada in bulshada looga sheego dhibaatada fikirka argagixisada al-shabaab uu leeyahay loona cadeeyo si joogto iyo mar walba iyo waqti walba qodobka ugu dambeeyo sagaalaad waxaan la garab taaganahay taageeraynaana ama cadaynaynaa in la garab istaago hay'adaha amniga ee deegaankeena loona hoggaansamo dhammaan awaamirta lagu sugayo amniga deegaankeena al-shabaab waa cadawgi deegaankeena si wada jir ahna inaan uga hortagno ayaan bulshada iyo culimada u cadaynaynaa hada wa billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar